Boqorka dalka Thailand, Boqor Maha ayaa guursaday haweeney ka tirsan ciidamada gaarka ah ilaaladiisa. Ilaa-wareed ka soo baxay aqalka boqortooyada ayaa shaaciyay inuu boqorku guursaday taliye ku-xigeenka ciidamada ilaalada gaarka ah ee Boqor Maha. Haweeneydan ayaa boqorku u boqoray boqoradda dalka Thailand. Haweeneydan boqorku la aqal-galay oo lagu magacaabo Suldaada ayaa muddo badan xiriir la lahayd boqorka balse ma ay jirin cid arrinkaa ka warqabta. Muuqaal laga soo duubay xafladda arooska ayaa lagu arkayaa xubno badan oo ka tirsan qoyska boqortooyada iyo la taliyayaasha reer boqor oo ku sugan goobta aroosku ka dhacayo. Waxa uu boqorku madaxa kaga firdhinayaa biyo boqoradda Saada. Arrinkaas ayaa ahaa hab dhaqameed ka jira dalka Thailand. Boqor Maha oo hadda ahaan jiray 66 sano ayaa jagada la wareegay kadib dhimashada aabihii oo dalka aad looga jeclaa. Boqorka ayaa hore u soo furay 3 dumar oo uu guursaday, waxa sidoo kale uu leeyahay 7 carruur ah sida ay ku waramayso warbaahinta maxalliga ee dalka Thailand. Sanadii 2014 ayay ahayd markuu boqorku u magacaabay haweeneydan ku-xigeenka ilaalada gaarka ah, iyadoo ay xusid mudan tahay inay haweeneydan hore u soo ahaan jirtay shaqaale diyaaradeed, isagoo markii dambena ka dhigay jenaraal buuxa sanadu markuu ahaa 2016, balse ugu dambeyn ay noqotay xaaskiisa ee boqoradda dalka Thailand. Arrintan ayaa si weyn u soo jiidatay warbaahinta caalamka, iyadoo dad badan ay ku tilmaameen arrin aad u la yaab badan. Mucjisadii toddobaad ee dalka Thailand. Fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar channelka, gambaleelkana taabo. Subscribe-taadu waa dhiirigelinteeda kolba sidaan u soo duubno muuqaal cusub oo idin xiisi geliya.